السلام عليكم. maanta waxaan suubinaa mobile-kayni ayaa rabaa inaad suubiyo wax loo yaqaano Paybase Google account inaad Gmail-ka aan ka jibiyo. Hadda mobile-kayni waxaa ku xiran Gmail, waxaan loo yaqaanaa mobile-kayni Samsung Galaxy J6 Plus ayaa loo yaqaanaa. marka ugu horeysa waxaan rabaa markii aan Gmail ka jibiyo oo caadi u shaqeeyo. Let's go. hadda wuxuu isoo qabanaa English United Kingdom, waxba kama bedelaysid. falaarta arrowgan oo right-ka ayaa dooran. markaad dooratid wuxuu kuu soo qabanaa meeshaani user license adi dhammaan waxaa doonaa I have read and agree, waa kugu raacsana dhammaan oo aqriyay. kadib waxaa sii doonay meeshaani ay ku qoran tahay next-gan ayaa dooranay. markaad dooratid next-gan wuxuu kuu soo saaraa print your all the data, skip ayaa iska dhigay. next ayaa dooranay, all the data uma baahni. marka meeshaan wuxuu kuu soo qabanaa internetkaada wifi haddii uu yahay ama hotspot ayaa kula xiran kartaa, oo mobile data meeshaan kama shaqeyso, laftan kula xirna internetka ma jirto. marka internetka hadda kula xirto aniga hadda ugu xiran meeshaan waxaa ku qoran connected ayaa ku qoran. next ayaad sii dooranay. next markaad dooratid checking updates ayuu suubinaa, waxyar xoogaa ayaa sugay. meeshaan wuxuu kuu soo saaraa Gmail-ka verify your account-kaada ayaa lagaga baahan yahay inaad cadeysid ama email ama phone ku dhaha. marka hadda Gmail-ka mobile-kayni ma aqaani, sababtoo ah waxaan rabaa inaan ka jibiyo oo Gmail-kiisa ma aqaani. qaabka uu jibi lahayd ayaa ku tusayaa. meeshaan markaad dooratid email-ka wuxuu kuu soo saaraa keyboard-ka aad wax ku qor leed. waxaad ka dooranay meeshaan ay ku qoran tahay setting-giga keyboard-ka kan ayaa dooranay. meeshaan English waxyaabs isoo qoraa, waxaa dooranay falaartani back arrow-di falaartan ayaa dooranay. marka falaartani dooratid wuxuu kuu soo saaraa Samsung keyboard iyo Google Voice Type kan ayaa dooranay. Google Voice Typing kan midkan ayaa dooranay Google Voice Typing markaad dooratid qaybtan kore oo searching-ka ayaa waxaad ku qoray open ayaad ku qoray. open markaad qortid waxaad dooranay midkan ay ku qoran tahay open web pages. hal mar open ayaa dhammaystiraa soo aragtid open web pages in the app kan ayaa dooranay open web pages-ka. open web pages markaad doorato waxaa kasii dooranay manage pending searches kan ayaa dooranay manage pending searches markaad dooratid wuxuu ku weydiinaa sign in no thanks ayaa dooranay. no thanks markaad dooratid waxaad ka raadinay meeshaani qaybtaani search ayaa ka raadinay. searching-ka ayaa dooranay. marka searching-ka dooratid meeshaan waxaad ku qoray Chrome ayaad ku qoray. application-ka Chrome-ka waa kana midka hoose ayaa dooranay Chrome ayaa dooranay. Chrome markaad dooratid waxaad dooranay accept and continue. next ayaad sii dooranay. sign in ayuu ku dhahaa ha dooran, waxaad doorataa no thanks markaad dooratid inta ayuu kuu soo saaraa. qaybtani searching type-ka ayaa dooranay. searching type-kani waxaad ku qoray frb file markaad qortid .com/ waxaa sii raacsinay Paybase marka waxaad qoray frbfile.com/Paybase go. marka intaad qortid qaybta hoose ayaad imaanay, waxaa raadinay Google Account Manager. waa kana Google Account Manager 8.apk kan ayaa dooranay. midkan ayaa loo baahan yahay, midkaasi oo 8-ka ayaa dooranay. linkigiisa ku dhufo. kadib waxaad doorataa continue dooro allow oo u ogolaado. kadib waxaad sii doorataa okay. hadda kaasuu iisoo degaa okay ayaa dhah. waxaan rabaa inaan sii degsado RP Paybase FRP ga ayaa sigana qaybtani ka raadina Paybase FRP
marka midkaani waa samsung ke frb all samsung.abk hadda waa la update gareeyay kadib waxaad sii dooranaya calaamadani falaartay download ayaa kusoo bini kusoo tagaasigin okay ayaa dooranay marka labadooda calaamadani saddexda calaamadood ayaa dooranay waxaa ka raadinay meeshan downloads waxyaabii aad soo degsatay waa kuwan labadan ayaa soo degsaday marka hore waxaan ku shubaa android gamekan ayaa ku shubaa gamekan oo kan 8k ayaan ku shubaa asiga dooro kadib settingska ayuu ku weydiinaa settings sii dooro muu ogasha ku dhaha inaad ku shubatid allow from this source yes okay oo qaybta chromeke kadib backde oo falaarta laabashade waxaad tahdaa install hadda ayuu ku shubaa okay dhan kaas waa dhamay waxaa ku shubayna haddana sidoo kale frb file sms kan ayaa ku shubayna asigana dooro kadib asiga waxaad doorataa install okay open ayaad dhihi kan marka hore waxaan dejistay file aanan u baahnaynin oo sms ke aniga waxaa u baahanaa kan paybas frb gan midkan ayaa u baahana oo 1.0 marka midka hore aad degsaday qalad ayuu ahaa kan ayaan degsanaa hadda okay ayaan dooranaa kan ha ii soo dego midka hore aan doortay qalad ayuu ahaa qaybta downloadska ayaan ku laabanaa oo ii soo degay waa midka u baahana kan aadaata degsaday frb file sms ke uma baahni kaas marka hadda uma baahni delete ayaan iska dhahaa labada file u baahana waa labadan hadda midkan gameke waa ku shubay installationkiisa kan frb paybaska ayaa ii dhiman kan ayaan ku shubanaa kadib install ayaan dooranaa install hadda installationka waa dhameeyay kadib open ayaan dhahaa open markaan dhaho qaybtana ii soo saara password ayuu weydiinaa u baahni waxaan dooranaa saddexdani calaamad markaa doorto wuxuu ii soo saaraa pro sign in ayaan dooranaa kadib okay ayaan dhahaa wuxuu igeynaa gmail waxaan rabaa marka inaa gmail hadda aniga aqaan inaa ku xirto ilaa midka hore ma aqaanin mana iga gudbi lahaynin laakiinse midkaani gmailkani waan aqaanaa waxaan rabaa marka inuu ii shaqeeyo ayaan rabaa marka gmailkan ayaan ku xirnaa hal mar gmail ayaa abuurnaa ama create account aan dhihi karaa hadda inta ayaa ka abuuri karaa create account gmail cusub ayaan abuurnaa first name hal mar marka wax yar iisoo telefonkeyga kale ayaan kusoo abuuranaa gmailka caadiga ama haddii kale kan ayaan ku abuurnaa dhib ma lahan hadda gmailka waa abuurtay oo gmailka uu ii dhamaaday markuu gmailka hadda ii dhamaaday kaliya waxaa lagaga baahan yahay telefonkeyga restart inaa u dirto bas marka restart ayaan hadda u diraa gmailka kaliya hadda weydiiyey create gmail dhaa gmail qaabka loo abuuray waxyaabahaas waa iska easy gmail ayaan soo bistay gmailka ayaan hadda kusoo xirtay marka hadda restart ayaan diraa waxaad dooranaya marka restart kadib waxaad sii dooranaya restart
هذا هو دميري قيبتان هذا جيميل كو يسو قوانا جيميل كهذا أورتوا إسرائيل ديار وهذا وجيميل كداتي أنا أورتي كتب حاطورنا نيجستي اوكي كتب حاسي تورني نيجستي أيا تورني ماشان حبيبيتينا protect your phone باسوير وحيابا سينا كحرتو not now ومباهني escape anyway qaybtaani waxaa sii doorana ay ku qoran tahay more hoos ay ku keenaa kadib waxaad tahay turn on kadib waxaad dooranay continue kadib more accept waxyaabahan waa diiweydiinaa qaybta hoosu ma okay ayaa dooranay هذا هو دمائي getting recommending avis ayuu dhahaa kadib waxaa dooranay next ayaa dooranay next markaan next dooratid Samsung account masuusan ayuu ku dhahaa marka escape ayaa dooranay kadib escape ayaad sii dooranay escape all done hadda shaqada wuu dhameeyay finish ayaa dooranay hadda waa aragtiin mobileka okay shaqada uu dhameeyay uu soo daarmay nadiif waaye caadi qofka hadda uu isticmaali karaa wuxuu weydiinaya mare marka applicationada data ku shuba ayaan tirtiraa FRP gan fileka uninstall waa tirtiraa doon baahni iyo FRP paperskaas kan asigana tirtir uninstall okay هذا لو application waa tirtiray